intii gabagabada barnaamijkayga su'aasha ugu dambaysan doonayna inaan ku soo afmeerno assalaamu calaykum waan idin salaamay adiga iyo sheekhuba ilaah khayr badan ha idinka siiyo dacwada aad ummadda u tabinaysaan waxaan ahay wiil Soomaaliyeed oo ku nool Yurub anigoo la kaftamaya xaaskayga ayaan ku dhahay hadii arrinkan sida ay noqoto xaaskaygu ma tihid arrinkiina sidii ay noqotay kaftan ayayna iga ahayd kumana baraarugsaneen inuu furiinka dhileel galo xaaskana waxay i tiraahday ima qabtid ma iga furan tahay xaaskaas الحمد لله horta furiinku iyo guurku kaftan ma galaan nabigana sallallahu alayhi wa sallam hadith hasan turuqdiisa marka la isugay wuxuu ku yiri ثلاث جدهن جد وهزلهن جد saddex kaftan kooduna waa kaf waa dhabtooduna waa dhab haday kaftan ka ahayd haday dhab ka ahaydba waa meherka waan ku meheriyay waan aqbalay iyo waan ku furay inta way dhacayaan صدرت horta waan kaftamayo cudur daar maaha meel lagu kaftamaa jirtay waxa lagu kaftamin taasi waa midaas midda kale xaaskaygi ma tihid eray sariixu talaaq cad maaha waa erayada kinaayada la yiraahdo weeye ama sarbeebta u dhig u eg waa eray furiinna noqon kara furiinna aan noqon karin erayadii sariixa maaha waxay ku xiran tahay marka hadalku aduu kugu soo noqonaya qofkaagan saa'ilka haddii markaa eraygaa lahayd aad furiin uga jeeday dalqad baa dhici haddaadan qasadka niyadaadu furiin uga jeedinna waxba ma dhacayo haddaadan furiin uga jeedin waxba ma dhacayo haddaad laakiin furiin uga jeeday dalqad baa dhici dalqad hadday dhacdo ood furiin uga jeeday kadib reerkii ma isku noqon kartaan waxay ku xidhan tahay hadda ka hor dalqad laba dalqadood hore ma ka tageen mise kaama tagin hadayna laba ka tagin waa isku noqon kartaa intii ciidada ku jirto laakiin dalqadan waa tirsan u horeysaya iyo mid kale oo ka horeysa labaysayaaba haday tii saddexaad tahayna waa macsalaama marka masalada waxay ka soo bilaaban adigu dalaaq maniyootay furiin miyaad ula jeeday mise ulamaada jeedin inta wixii ka dambeeya dii adaa mufti isu noqonays xukumi waan ula jeeday hadaad dhahdana dalqadun baa lagu xukumi hadaad tiraahdo anu ulama jeedinna de ma furnun baa lagu dhihi ma ka run sheegtay mase ka been sheegtay adiga Allahaaga wabillahi tawfiiq guud ahaan daawadayaal inta waxaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijka iyaga kulanka Shiblaad inooga barateen toddobaad walbo marka ugu horeys waxaan u mahadcelinayaa Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli oo had iyo jeer nagala qayb qaata barnaamijkan su'aalaha hadina soo weydiisaan si hagare ay ku jirna oga jawaaba marka xiga waxaan u mahadcelinayaa dhammaan tiimka Somali Channel ee magaalada Nairobi ugu horeeyo injineer Cabdiraxiin Darbo had iyo jeer naga xaqtira dhanka kaamirada iyo farsamaduba tan intaynu barnaamijka la mid ah ku kulmi doono waan waa Axmed Isaaq Cabdi Axmed Laqay iyo Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli idile sida iyo nabadgelyo noole kulanta. Assalaamu alaykum.